ninkan markii la ribooday oo akoonkiisa waaran la saaray akoonkiisii TikTok-gana uu bareefad noqday waa uu isdhiibay runta ayuuna sheegay waxaana caddayn u ah asaga iyo gabadhan wixii dhex maray bilo ka hor reer commentilana dadka commentiyada qora waa dadka kaliya ee qof wax uusan rabin ka dhaadhici kara ninkan xalay iyo shalay waa la weeraray waxa la gaarsiiyay heer uu live-ka ku ooyo dadka commentiga qora waa dadka kaliya oo reere isqaba kala geeya dhankaas shaydaamay ka yihiin waad ogtihiin gabadhan iyo wiilkan isqaba sidii u wareeriyeen asbuucan dhanna wadaniyiinay ka yihiin abi axmed sidii loo galay waa ogeyn inta page-kiisa Facebook-ga loo daatay ninkan kale oo muqdisho sawirka qaldan ka baxshay sidii loo galay asagana markii la weeraray waa ogeyn waa dad midaysan haday kugu soo jeestaan siday rabaan ka yeeli kara wadaadkan saaxiibadiis garbihiisa waa ka baxeen meel cilaahuna ku soo dhacay intaanan idan la wadaagin weerarka xal ninkan lagu qaaday iyo qisadiisa xanuunka aan idan la wadaago saddex qodob ama saddex ujeedo oo cadeymahooda wata oo ninkan markii hore ka lahaa arintan horta muuqaalkan like saara siina share gareeya si ay dadka Soomaaliyeed xaqiiqada u ogaadaan ugu horeyn ninkan wuxuu aad u necab yahay culimada suufiyada oo uu rabay inuu ku diro arintan waxaana cadeyn u ah asaga iyo gabadhan wixii dhex maray bilo ka hor gabadhan waxay barteeda TikTok ku soo gashaa jalaqsan waxayna isku soo duubtaa fiidiyoyo ah dikri iyo xatrooyin iyo halka gabdhaha qaar ay heesaha isku soo duubaan ayagoo neekinaya marka wadaadkan gabadhan ayuu dhowr mar live la soo qabsaday waxauna isku dayay inuu ka waaniyo oo mowqifkeeda uu bedelo maadaama ay tahay qof dumara iska qalbi jilicsan asagoo ku dhahaya waxan waa shirki waxan waa dembi maadaama ay tahay qof mayal adag cilmiyan ulama aysan doodayn laakiin waa uu bedeli waayey haddana markii la weydiiyey maxaa daliila oo u haysataa inuu meherkan ku jiro waxa uu ku jawaabay culimada ashaacirada qabta iyo dadku way isla baxsadaan sidaasayna isku guursadaan marka waxa uu suurad xun ka bixinayaa guurkii isla baxsadka ahaa oo dad badan oo muslimiin ay ku dhasheen ummadda ayuuna shaki ku abuuraya xitaa waan aqbalay muuse dhihin maalintii dhaweed oo gabadhan meherka la samaynayay maxaa yeelay waa wax ay ku soo heshiiyeen oo ay rabeen inay hadalhayn ku samaystaan sida asaguba uu live-ka ka sheegay xala markii la fashiliyey aan idan kaga dhaca marka xala wixii ku dhacay ninkan markii uu yiri horta gabadhan waa qabaa iyaduna ay oyday oo ay calaacashay waana la ribooday ninkan shala dhan ribooda ku socday waxaa dhacday in ninkan akoonkiisa waaran la saaro ama digniin kadib ninkan akoonkiisa bareefad uu ka dhigtay only me kadib xalay live uu soo furtay waxa uu isku dayay inuu dadka qanciyo oo arrinta dejiyo markuu live-ka soo furtayba yaaba dhageysanaya waxa loo soo qoray tuug sixiroole saara fur maalinkii hore markii uu waxan ku dhaqaaqayay ninkan waa loo hambaliyeynayay waa loo sacabtumay markii commentiyadaas qaldan loo soo qoray ninkan wuu xanaaqay waxa uu yiri maxaad ka ogtihiin adinku waxaan rabnay inaan buuq sameeyno waxaan rabnay dhalinyarada ku mashquulsan in qabiilo la caayo ama sida qaldan wax ku raadinaya inaan mashquulino gabadha darteed iyo aayaysaana waa qofka dadka igu dhow mar walba wada hadalna waana ku heshiinay waxaan inaan idan waalnaan rabnay dadkan waxas ma dhageysanayaan waxay soo qorayaan tuug sixiroole waxa uu bilaabay inuu dadkii commentiga soo qoraayo caayo hooyadiin anaa qaba inta tuug ii soo qorayda hooyooyinkoodan qaba iyo erayo kale oo xanaaq ka keenay markaas wixii ka dambeeyana commentigiiba wuu xirtay ujeedada saddexaad ninkan gabadha jecel ee Omar Barbar maadaama uusan cilmi badan lahayn awalna uu arrinta wax ka ogaa oo ay kaftan la ahay isaga iyo wadaadkaana ay xifaaltan iyo cadaawad ka dhaxaysay oo ay gabadhan isku haysteen waxa uu rabaa inuu ka dhaadhiciyo guurkan wuuba dhacay oo suufiyada qaba Omarna wuxuu markii hore kaftan la ahaayeen wuxuu dhuuso moodaya xaar ku noqday marka ninkan xalay intuu live-ka saarnaa arrintiina uu fashilay kuwa kale oo raba inuu buuqu sii socdo xoogaa giftiye iyo waxay ku helaan waxayba taagan yihiin maxaad ka hadlayday niyahow way maqlayeen waxa uu sheegayo ee waxay rabaan inay aamusiyaan wadaadkaana waaba la weeraray oo meesha u dambeeyay ka maraysa